xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ayaa kalfadhi ay saaka yeesheen waxa ay kaga hadleen xaaladda nabadgelyo ee dalka. xildhibaanada oo mid uga hadlaya xaaladda nabadgelyo ee dalka ka jirta ayaa waxay si gaar ah uga hadleen colaadihii ka jiray koonfurta gobolka Sool iyo nabadeyntii laga dhex waday beelahaasi iyo waliba waxyaabaha ka fulay heshiisyadii ay gaadheen. kalfadhigan oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadii ka hadlay kalfadhigaasi waxa hadaladoodii ka mid ahaa. waxaynu warbixin ka dhagaysanaynaa qolooyinkii reer mas'aalood dagaaladu dhex mareen dabeetana ilaa jigjiga la aaday. insha allah ku khayr meeshii wanaan ku dhalanayadoo diyaar baynu laakiin dhibtu way iska jirtaa waa dhubde awoodda ciidanka dawladnimada kuma badna lascaanada dawladda joogto bahami walba lagu dariyaa dadka markaan leeyahay golaha guurtida noo sheegaa ka noqsanaya xukuumadda waxaa jira magaalada dumay saddex reer dhowr deganaa qayaar iyo bahar samay iyo nin maxamuud gaas la yidhaahdo niman maxamed Yusuf la yiraahdo waxay degan meel markii la isleeyay meel dhagax isku la yiraahdo oo dhumay 4 kiiloomitir u jirta meesha 4 kiiloomitir odayaasha halkan labada dhinac way yimaadeen waxay halkaa ka baabiyo waxa lagu yiri dawadii isku jiray waxa la anaga dhulkii iska gubinay iyagu dhulkii oo dhisay yahay dadkii loo dhaqayay xukuumaddu wali waxa kala qaban waxaan halka u baahanahay dalka Soomaaliland waxa joogta inay dalka daacad uga shaqeyso wasaaradda dakhliga oo wixii mudafaa ay qabato wasiirka dakhliga Ismaaciil wasiir ku-xigeenka odayaasha way sarkeen waxaa la yiri meesha ka baabiyo amniga mas'uulna khatar kala ma hadlee hal baabiyo wasaaraddu way wada qaadaysaa waxna fulmayso xukuumadda iyo golaha waxa ka codsanayna in hawsha la qabto wixii dadka wanaagiisa ay wada qabanno wixii xasanadii wada wabeeshe anagu halkaas laga marasa ilaahay mahadi awuhu waa iska farqadnaayeen say kala horeen ma loo kala gelaya maanta waxa la kala qaadanayaa qoladii barkad iyo qoladii reecalgay aaski iyo qoriyihii iyo waxaan kaas xiikan way ku xigaan hadda waxa la sheegay in maanta hore arrintu soo gunaanayso. علي محمد حسين علي وعيس تلفزيون كصاب هرقيسان.